hadda ka hor sheeko ayaa dhacday. Sheekadaani waa sheeko xiiso badan. Waxaa jiray laba saaxiib. Sidoo kale waxaa jiray waxyaalo kale oo aan idinku dari doono. Beri ayaa waxaa jiray laba saaxiib. Labadaas saaxiibna waxay ahaayeen laba saaxiib oo mid ka mid ihi uu yahay saaxiib daacad ah, mid ka mid ihina uu yahay saaxiib danaysta ah. Labadii saaxiib oo saaxiibna danaystaha ahaa, saaxiibna daacadda ahaa, waxaa dhex madhay lacag. Lacagtiina waxaa gacanta ku hayay saaxiibkii ahaa daacadda. Lacagtaasna waa la wada cunay iyo hantiyo kale oo badan. Berigii dambe ayaa waxaa dhacay saaxiibkii khiyaanoolaha ahaa ayaa wuxuu sameeyey inuu helay lacag. Markaa ayuu wuxuu ku yiri saaxiibkii kale si uu lacagtii iyo wixii asaga keligii u cuno, saaxiibow waanu shiidnay ee waxaan samaynaynaa ninba meel ha aado. Nin kastana meesha uu aado wixii uu ka keeno saaxiibkiisa kale waxa uga keeno. Saaxiibkii daacadda ahaa wuu aqbalay taladii wuuna la qaatay. Subaxyada ka mid ah ayaa waxaa dhacday saaxiibkii daacadda ahaa wuxuu aaday dhabo. Saaxiibkii aan daacadda ahayn oo khiyaanoolaha ahaana wuxuu aaday dhabo kale. Markii la kala socday ayaa waxaa lagu heshiiyey in heshiiskoodii la kala tegayna waxaa ka mid ahaa in saaxiib walba uu aado meelaha boqortooyinka la deriska ah si uu wax uga soo helo. Saaxiibkii daacadda ahaa wuxuu sameeyey maalin ayuu dhaqaaqay. Maalinkii oo dhan ayuu sii socday. Markuu waqti dheer sii socday ayaa gabalkii u dhacay. Markii gabalku u dhacay ayuu wuxuu fiiriyey meel wuxuu tegay geed ku yaallo dheer oo tog ah, oo geedkaa dheerna waxaa ku yaalla god hoostiisa. Godkaas oo ay degaan qorismarisyada iyo jinku. Sidaa la adligeed geedkaasna waxaa shir ku qaata qorismarisyada iyo jinka. Markaa halkaa xaaja markay maraysay ninkii daacadda ahaa geedkii uu fuulay. Ninkii daacadda ahaa markuu geedka fuulay ayaa waxaa isugu yimi geedka hoostiisa qorismarisyadii. Qorismarisyadii markay isu yimaadeen waxaa dhacday qisadan soo socota. Qisadan soo socota oo ah qorismarisyadii waxay yidhaahdeen geedka cidi ma saaran tahay. Markaas ayaa mid ka mid ah wuxuu yiri geedkan cidina ma saarno mana fuuli karto nafteeda rabtee war baan ku hayaa warkayga hoo. Siiri ii waran saaxiibkayow. Siiri magaalo heble la yiraahdo waxaa jooga nin boqor ah. Siyo waa gartay. Siiro boqorku waa boqor ah ma dhalays. Siiro waa gartay. Dawadiisana anigu waan hayaa oo waxaa ii sheegay jinka hebel ah. Oo markaas maxaa dawo u ah buu yiri, sidee loo daweyn karayaa? Markaasuu wuxuu yiri waxaa dawo u ah geedka aanu hoostiisa taaganahay. Waa gartay buu yiri. Kii kale wuxuu yiri saaxiib anna war baan ku hayaa warkaniga hoos. Siyo warkayga ii hayso. Bal haddaba warka ii daadi. Marka warkiiba u daadiyey wuxuu yiri saaxiibow magaalada la yiraahdo magaalo heblo oo boqorka aad sheegaysid ka taliyo waxaa jooga mas weyn meel ku dhow oo meel heble la yiraahdo god ku leeyahay. Waana masduulaa bilaayo ka dhacday. Wuxuuna cunaa ciyaalka magaaladaas oo dhan asaga ayaa quuta. Dadkuna waxay aaminsan yihiin inuu yahay jin sadaqadiisa ka gurta iyo awliyo wax jeclaata oo waxa ugu sheekeeyay boqorka markuu tabar waayay. Oo markaas yiri oo maxaa dawo u ah maskaasna geedka la yiraahdo geed hebel baa sun u ah oo haddii godkiisa iridka laga dhigo
wuu dhimanayaa. Oo maska markaasuu yiri oo masku goormuu godka galaa? Se godkuu galo waa god see u eg. Suu godkiisu waa godkaa sidaa meel saa u jeexan oo intaa dhulka qodan oo intaas saaso oo xilligaasuu galaa. Xilligaana wuu ka soo baxaa. Suu yiri oo markaa xilliga uu soo baxayo maaha iyo xilliguu gala maaha inta kale maskaas ciddii iridka godkaa tagta ma ku soo baxayaa? Suu yiri ma ku soo baxayo. Suu yiri oo sidee u heli karnaa inaan dadkaas annagu wax u sheegno? Suu yiri taas waan awoodnaa. Markaasuu yiri oo boqorkaas hadda hadduu dhinto yaa boqornimadiisa dhaxlaya? Boqornimadiisa waa cid hadda dhaxlaysa ma diyaarsan. Boqorkaasna si kastoo ilmo ku heli karo ayuu rabaa. Markaasuu yiri oo arrinkaasi waa arrin weyn maxaa talaa inagu see ula xiriiri karnaa? Inagu haddaan waan la xiriiri doonaa, laakiin waxaa laga yaabaa qof waxaa jira daacad ah oo saaxiibkii ka soo baxsan doona, saaxiibkiis khiyaani doono. Qofka ayaana ku guuleysan doona arrinka. Boqorkaasna waxyaalo badan buu siin doonaa. Maskaasna waa la dili doonaa. Cimrigooduna ma foga. Maska cimrigiisu ma foga. Boqorka ilmo la-aantiisuna cimri fog ma ahan. Markay sheekadii halkaa dhigeen ayaa waxaa yiri oo boqorkaas sidee loogu tegi karaa? Suu yiri boqorkaas xilli hebel iyo xilli hebel markay tahay buu magaalada wareegaa. Wuxuuna tagaa meel hebla iyo meel hebla. Inta kalena ciddii aada qoortaa laga jaraa. Markuu sidii ninkii qorismariska sidii isu wareysteen ayaa sheekadii waxaa helay ninkii daacadda ahaa. Wuxuuna tegay magaaladii boqortooyadu ka talinaysay. Markuu magaaladii tegay ayuu wuxuu yiri boqorkiibu maalinkii loo sheegay ayuu boqorkii aaday. Kadibna boqorkii bay isleen. Markaasuu yiri boqor allow war baan kuu hayaa wax ku taraya. Suu yiri maxaad ii haysaa? Suu yiri waxaan kuu hayaa waan og boqoro waxaan maqlay inaadan ilmo dhalin. Waxaan kuu hayaa dawo ay ilmo dhalaysid haddaan ku siiyo. Suu yiri boqorkii haddaad been ii sheegtidna qoortaan kaa jarayaa. Haddii daawadaada aan cuno oo aan ku fiicnaado ilmo dhalana waxaan kuu dhisayaa 2 gabdhood iyo 2 guri oo fiican oo qasriye ah. Waayahay buu yiri boqorkii geedkii caleentiisii oo ninkii uu horey u soo qaatay buu u dhiibay. Kadibna wuu daawo ahaan buu u isticmaalay. Boqorkii ilmuu dhalay. Markuu boqorkii ilmo dhalay baa haddana ninkii oo reerihii iyo wixii loo sameeyey baa ninkii boqorka ku noqday. Wuxuu yiri boqorow anna ilmaan dhalaya adna ilmaa dhalaysaa. Dadka kalena ilmahoodii waa la dhammaystay. Cidda kaliya ilmahooda hadda badbaadada ku jirto waa inaga. Marka haddaan sameeyo dawo magaaladana mas baa ilmaheeda dhammaystay. Maskaana waan aqaanaa. Meeshu ku jirana waan ogahay. Maskaa haddaan anigu dilo ka waran ciddii shana hore loo waayay. Suu yiri boqortooyada ayaan waxaan kaaga dhigayaa shaqsiga labaad oo aniga igu xiga haddaad arrinkaa qabatid. Markaasuu yiri waa qabanayaa. Boqorkii baa wuxuu yiri markaa ballan ma tahay? Haa. Haddaa adiga bahalku ku cunanayso. Suu yiri aniga bahalku i cuni mayo. Suu yiri berri heshiiska aan kula galay si aan adna heshiiskaaga loo arko adna kayga loo arko waxaan u yeerayaa shacabkii magaaladan oo dhan oo boqortooyada hoos imaanayay. Waxaana oranayaa ninkaa ayaa arrinkaa ballan qaaday. Waxaasuuna yahay hadduu arrinkaa ku guuleysto. Arrinkii horena wuu ku guuleystay. Waayahay buu yiri ninkii. Boqorkii iyo ninkii heshiiskii bay galeen. Bulshadii baa xogtii ogaatay. Markhaanti ka noqotay. Ninkii caleentii geedka buu qaatay. Xilligii la yiri bahalku wuu hurdaa buu iridka ka dhigay. Kadibna maskii baa soo baxay isagoo rabo masduulaagii weynaa habeenkii dambe inuu shaqaysto oo cuno ciyaalkii cunugii boqorka iyo cunugii koowaad oo ninkii daacadda ahaa saaxiib daacad ahaa. Sidaa markay ahayd qisadii ayaa waxaa dhacday saaxiibkii saaxiib daacad ahaa
waxaa dhacday inuu ayro gabana sameeyey inuu halkaa xaajadu markay maraysay bahalkii buu dilay. Bahalkii markii uu dilay oo bahalkii uu suntii iridkiisa dhigay, maskii baa soo baxay, wixii buuna cunay. Maskii markuu wixii cunay iyo wixii dhici doona iyo saaxiibkii kale qisadii dhex mari lahayd waxaan idinka dhigi doonaa dib. Marka waa inoo xilligan xilligiisa kale. Waa mahadsantihiin.